السلام عليكم kusoo dhawaada barnaamijkeena xikmadaha naf walba waxay dhadhaminaysaa geerida balse naf walba ma dhadhaminayso nolosha quruxda qofku waa saddex inuu qariyo saboolnimadiisa ilaa ay dadku dhowrsanaantiisa darteed u maleeyaan inuu yahay hantiile inuu qariyo caradiisa ilaa ay deganaantiisa dadku u maleeyaan inuu yahay raalli inuu qariyo dhibka haysta ilaa dhowla caddayntiisa loo maleeyo inuu barwaaqaysan yahay in qalbiyada la jabiyo iyo in la kasbado waxa u dhaxeeya tolmo magaceeda la dhaho asluub roobku waa soo daa marka ay daruurtu qaadi weyso culayska biyaha ilintuna waxay soo dhacdaa marka uu qalbigu qaadi waayo culayska dhaawaca ha furin laabtaada ilaa aad ku hubsanaysid daahirnaanta qofka aad doonaysid inuu dego mar walba waa damacdo inaad isdhiibto ka fikir kuwa jecel inay arkaan adoo guul darraystay xaaladaha qaar waa sidii qaxwaha waa qaraal balse waxay kaa dhigayaan qof indhihiisu furan yahay oo soo jeeda oo adag oo noloshan wax la qaybsan karaya midabka cusbada iyo sonkortu waa isku mid balse waxaa lagu kala gartaa dhadhanka diinta intaad haysato ha ku qanin balse adduunka intaad haysato ku qanac ruuxii u halgamay tujaale ah waxa uu lamid yahay qof naftiisa dab qabadsiiyey si uu waddada ugu iftiimiyo qof indhoole ah mar walba oo dadkii hore ay taageerayaal ku noqdaan waxaad u baahan tahay cadow cusub waa ukunta iyo ballanta kuwa ugu horjabi og ha garaacin albaabka qof haweenah haddii aanad wadanin boorsooyin xiisa ah farxaddu waa xornimaduna waa inaad sii wado noloshaada caadiga ah dardaaran la'aan dadka qaar ma garanayaan sidii ay ku yidhaahsan lahaayeen haddana ma doonayaan inaad ka tegtid oo aad cid kale aadid ma arki kartid xidigaha ilaa uu mugdi noqdo mid daran dadka qaarna waa sidaas oo macnahooda waxaa la gartaa markii uu dhib jiro waxa aadan ahayn ha iska dhigin waxaad tahayna ha ka cabsan in lagugu ammaani waayo oo lagugu eedeeyo ha joojinin iskudaygaga xagga guusha hana niyad jabin haddii aad kuftid maxaa yeelay lama sheegin qofku fa isagoo fadhiya ha ka mid noqonin safafka xiisaha ee ka mid noqon safafka xaqiiqada